Waddanka Ereteriya ayaa maanta looga dabaaldegay guul ay sheegeen inay ka gaadheen Itoobiya, taas oo keentay inay gacanta ku dhigaan dhulka xuduudka labada dal ee ay ku yaalaan magaalada muhiimka ah ee Badme iyo dhul kale ay horey Itoobiya u sheegan jirtay. Maanta oo kale, 13 Abriil sanadkii 2002 ayaa la shaaciyay go'aankii kama dambaysta ahaa ee lagu xadeynayo xuduudda u dhaxaysa Itoobiya iyo Ereteriya kadib dagaal khasaaro badan dhaliyay oo muddo 2 sannadood ah socday oo u dhaxeeyay Itoobiya iyo Ereteriya. Badme oo ahayd magaalada ay Itoobiya ilaa maanta ka quusan laadahay xudunna u ahayd dagaalka labada dal ayaa waxaa loo xukumay Ereteriya, sidoo kalena deegaanka istiraatiijiga ah ee Sorona oo uu dagaal xun ka dhacay ayaa waqtigaas loo xukumay Ereteriya, halka magaalada Salamba iyo dhul kale oo ay ka mid yihiin deegaanada xuduudka ee Bure iyo Saddexagalka Yirga ay Ereteriya gacanta ku dhigtay. Xukunadan oo ay soo saareen guddi loo dhisay xuduudda Itoobiya iyo Ereteriya iyadoo laga duulayo heshiiskii Algiers ee Diseembar 2000 ay adduunyadu ku qasabtay Itoobiya iyo Ereteriya ayaa waxaa maanta magaala madaxda Ereteriya ee Asmara looga sameeyay fantastiyo iyo dabaaldeg lagu muujinayo guul. Xuskan oo ku soo beegmay xilli ay xiisad hor leh ka dhex taagan tahay labada dal, isla markaana ay jiraan hadallo xanaf leh oo bilihii ugu dambeeyay ka soo yeedhayay labada dhinac, kuwaas oo salka ku hayay damaca Itoobiya ay ku doonayso inay qabsato dekedda Casab ee Ereteriya ayaa waxaa guddida xuduudaha oo go'aankooda ku dhawaaqay sanadkii 2002 waxa ay xukunkooda ku saleeyeen heshiisyadii gumaysiga ee 1900-kii, 1902 iyo 1908 iyo sidoo kale sharciyada caalamiga ah. Go'aankaas oo labada dalba ay si rasmi ah u oggolaadeen waqtigaas ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa mid kama dambays ah, balse markii la gaadhay wejigii calaamadaynta xuduudka ayaa uu khilaaf cusub ka dhex qarxay Itoobiya iyo Ereteriya, taasoo hakisay howlihii guddidu ku calaamadinayeen xuduudka. Qaramada Midoobay ayaa markaas ku baaqday in labada dowladeed ay u hoggaansamaan heshiiska. Ugu dambeyntiina bishii Nofeembar 2007 guddigu wuxuu si rasmi ah u shaaciyay halka uu marayo xuduudka labada dal iyadoo tiirarkii la calaamadin lahaa lagu bedelay nidaam cusub oo sawir qaadis iyo khariirada labada dal oo ay Qaramada Midoobay dib u nashqadeysay, sidaasna lagu dhaqangeliyay. Wakiilada labada dowladood uga qaybgalayay heshiiskii calaamadaynta ee Algiers waxay ka koobnaayeen madax sare iyo qareenno caalami ah oo ay qabsadeen, kuwaas oo iskugu jiray sharciyaqaano ka kala socday jaamacado waaweyn sida Yale iyo Oxford iyo sidoo kale la taliyayaal khubaro ah oo ka shaqeeyay khariidadeynta iyo arrimaha xuduudaha. Go'aankii la gaadhay 13 Abriil sanadkii 2002 ayaa meesha ka saarin khilaafkii iyo colaadii u dhaxaysay labada dal, waxaana ilaa maanta taagan xiisad colaadeed oo salka ku haysa muranada dhulka iyo damaca cusub ee Itoobiya ee ah inay hesho marin ay ka gasho Badda Cas, iyadoo warbaahinta Itoobiya ay ku celcelinayso in dekedda Casab ay iyagu leeyihiin oo laga dhacay, taas oo sii murgisay xiisadda u dhaxaysa labada dal.